askari tille oo jaaga u xirantaa Soomaaliya ka jirta adduunka waa ka mamnuuc Afrika waa ka mamnuuc askari jaaga u xiranta ilaa geeyo madaxweynaha rabaaba oo hadii la ku rooyo maaragtay madaxtooyada nabada soo ilaaba sababta aniga isla toora aha jiray dawladda kacanka u shaqay jiray waxa waaye hadii la ku rooyo aniga si qaab dawlad loola shaqeysto waa aqaan madaxweynaha iyo wasiirada iyo dawladda hoose dad u dhaxaya waxa jira aan baahida shacabka oo gudbin oo madaxda sare ka warqabin lacagtan in la diiday madaxweynuhu kama warqabo in baahida ay hayso shacabka xamar lagu baqbaqtaa oo dadka busaarado hayso madaxweynaha uga warbixinay xasan sheekh maxamuud in si degdeg ah ay u geeyaan raba oo hadii la ku rooyo aydan sharuud lahayn si aan u iraa baahida shacabka lacagtooda lagu la diiday aniga hadda 7 sano jira ma shaqay karo oo waa yeela ah hadii la ku rooyo isla toora aha jira wardiile degana qol 4 kiraan qol 4 mitir degan oo kiraa ma garata laba jeer dukaan laga bilqaystay aniga USC aan iga bilqaystay qolooyinka xamar u badan intaaydo dadka bilqaysta aan qayb ka ahay oo macnaha hawiyaan cid ka ahaa hawiyaa iga bilqaystay aniga ani wax ma bilqaystay bilqaantiya la dadka wax bilqaystay caamay ka yihiin dhaqaalay haystaan marka duqa sida baahideyda gaarkaan ugu bandhigo Soomaalida baahideeda aan u sheego in duqa la geeyo raba xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la geeyaba marka madaxweynaha ayaan la si degdeg ah la u geeyo adiga oo dhahaya maqlay aniga kaash istaaxalayna ka baahnaa maxay ka dhigan lacagtaas cusub anoo istaaxala waa ka qaday ma garatay dadka ilamada hatta quudo hadaan xal hatta anuu ka dhargo oo hatta qof cashada iga dhiibto Soomaaliin cashada laga wada dhiibo ma ahanay dharganta afka Soomaalida shacabka baahna ku hadla afkooda marka waxaan leeyahay si degdeg ah lacagtaana loo soo abuuro oo loo keeno tanna loo socodsiyo lacagtaan anu ku malihi waxa kale oo jirta Soomaaliya Afrika askarteeda askari tille oo jaaga u xiranta Soomaaliya ka jirta adduunka waa ka mamnuuc Afrika waa ka mamnuuc askari jaaga u xiranta jaagada waxa xirta Mareykanka iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo Norwayna jaaga u xiranta ciidamadooda ciidanka Afrika waxa laga rabaa hadii la ku roon yahay inay jaaga xiran hadda waxa arkay هو حمر جاga askartoodu xirantahay baliiska jaaga qaar u xirantahay taliyada waxa diglaa waxa arkay jaaga u xirantahay ana askari ah jira moogta marka waxa laga rabaa macallin mahdi si degdeg ah soo fiican yahay korneel bi waxa waaye macnaha waana madaxiisa waa ka adag yahay nin shaqadiisa ka soo bixi karan waa yahay laakiin waxa la rabaa askarta uu xukumo inuu dishmiinka kala dagaalo oo jaagada madax xiirayna kuwa xiirayna shaqada ka eriyo lacagta aniga guriga iyo dukaan iyo xumo aan lahayo kulli ay taalaaba oo dhacdo waa barakacaba dhaqaalaha xaqooda oo ka barakacaba dhaqaalaha hadda waxaan rabaa dawladdu inay iskaabto lacagtaas magdhow inay ka siisaan rabaaba hadda waxa inta ku quraysanaa $100 waxa waaye فعل سواء لكن ما Soomaali ma wada haysato $100 Soomaali waxay wada haysataa lacagtaas kukunka waa diiday way ka qaday dad badan xala ka qaday bicna anu hadaan dhargo afka shacabka hadaan ku hadla anu maalin hadaan dhargo Soomaali in dhartama nima waxa leeyahay wax rijaal lagu maamulay badar kuleel inta guri la galay oo calooshu weynaato aan ku darsado dhargo banaanka soo baxay Soomaali maanta abaarta ka guurtay dadka dhaqaalaha loo xamar jooga saas waay Soomaali abaar waa ku guurto waay 15 bilyan 20 bilyan intii kor saareen Soomaali ma baahnaba calooshooda ka arkeen marka Soomaali dabaqaas boqolaal hadii la ku rooy ku hoos baaba hadii la ku rooy kuna hoos dhintay oo busaarado haysa marka afka shacabka anoo ku hadla waxaan leeyahay hadii la ku dadkaas busaarado hayso cawinaad la soo gaaro oo adduunyada loogu qayliyo oo dawladdu hadii la ku rooyahay hala kaashato adduunyada kaligeed ma baahi tiri kartaa shanta boqol lacagta hore waay dawladda kacanka waa sanduuqa ugu jirtay dawladda kacanka waa oday waa dhaqaalo ku dheereeya marka aniga laba dukaan ku lahay xamar weyne mid mara USC ga bilqaysatay mar hadii la ku rooy markii hawiyo istagaalayeen laga bilqaystay marna siyaad markii la dagaalay dawladda kacanka laga bilqaystay ka bacdina baaba isu kay qaba weydaba xoogaa dhalo asaas sarif leeyana saana noqotay lacagtayd marka in magdhow dawladdan ka raba in lacagta soo suubiso waxa iga dhuman ay magdhow iga siiso duqan si degdeg madaxweynaha in lagu geeyo raba si baahida jeegtaan u sheego kuwa hadda la jooga u sheegi ma dalka baahida jirta uma sheegaan wasiiray ka shaqayaan shaqa kale qalqaashaan aniga dhoofitaan ay rabay leeyihiin safiiraan rabaa ay leeyihiin waxa ka shaqayaan ma shacabka ay matalaan uma muuqato baahidooda marka duqasaan baahida shacabka ugu muujiyo madaxweynaha xasan sheekh waji waana soo fadhiisana markaas war helaba taraha xamay madar ku helaan dhihraa
waxaa laga yaabaa baahida dalka taale inaan war ka qabin oo la leeyahay xamar waa lagu dhargay gobollada waa lagu dhargay madaxweyne adee dowladdaada boqol waayo wax baahida meel kasta waa haqabtirta la leeyahay oo waxay gaarsiisa dhaqaale leeyahay wax baahanu ma jiraan marka waxaa waaye haddii alla kuurooya baahidana saasaan ka leeyahay ciidamadana madaxa iska jar ha la yidhaaho macallimahdii soo u xiiran yahay ciidamada u xiirto taliya laba xidiglaan waxaan arka jaaga u xiiran tahay ee la leeyahay canuga caaswaalda iyo dhaqan celi hawdhaq canugana jaagaa loo diida hawdhaqan celi asiga jaaga u xiiran tahay magacayga maxamed cabdullaahi maxamed oo ku magac dheer Obre waa maasan tahay business connector horta aad u taageeraa maasha Allah waxaan ku xirnaa ilaa iyo waqti waaye marka maanta waxaan si biyashina macnaa la kulmo oo macnaa taariikhda ka hor jirtay inaa meeshan aan kaga hadlo hadda ka hor waxaa jirtay wiil iyo hooyadiis oo maamada markii wiilka haysatay wiilka xuska wiil oo iska madiya xamar ay degnaayeen dhul kala kacsan ay lahaayeen oo u shidneed ilaahay amarkiis dhulka marka u shidneed waxaa dhacday wiilkii markii dambe waxaa ku soo degay inuu tahriibo maamada marka waxay tiri ilaa inaa kula tahriibaa jira haddaad tahriibaysid haddaad joogaysidna wada joogaynaa dhulkan waa naga badan yahay aan qaybta kalena ku ganacso ma yiri hooye asaakay Yurub ay galeen ana Yurub arbaa inaa galo okay lacag isku ka aruurna caadi u baxay adoon tahriib ma yidhaa dhulkaas inaa maraa jirto waa soo ogaado maamadii wixii boosas ay leedahay oo dhan ay gaday way israaceen ilaa amarkiis meel yiraahdo malakal markay marayaan ilaa amarkiis maamadii xoogaa way xanuunsatay wiilka markuu maqlo way xanuunsanay iskala joog dhalinyaradii adeen maamada ka tagin iskala joog markay caafimaad hore u soo raac wuxuu isir dhalinyarada ay ka tagin maamada kaaga fudud maamada ka tag waa hooyadiis maamadii marka meesha uga tagay maamadii markuu meesha uga tagay ilaa amarkiis doontii u raacay wuu baxay macnaa malakaal doona meesha kale oo qartoon loo gudbay moogtaa ilaan South Sudan tan iyo qaybtaas kale oo Umar al-Bashir doona loo kala gudbaa doontii uu gudba marka maamadii waa sakaraata marka anagoo taraaglayaala meesha ilaa amarkiis tagnay maamadii aan la kulunsiiyay wada Fuuriyana gacanta ku hayeen isbitaalka Fuuriyana ku jirtay maamadii markii dibxada ayaa Soomaaliya meesha imaado anaga markana la wacay mid Kenyana marka la wacay waxa la yiri Soomaalida meeshan joogto soo raadi Kenyaanki marka aniga iyo mid adeerkay hadda Mareykan jiro wana soo wacay wuxuu yiri naag oo Soomaaliya meeshan ku jirto waayelo xanuunsan kaali u imaado maamadii u tagnay maamadii markaas uu tagnay isbitaalkii xaaladeeda ogaanay marka ogaanay waxa dhacday aniga wiilkaas dhalay saas adigu taariikhdeena nooga sheekaysay maamadii waa soo kaxeen marka jubba keenay jubba marka keenay maamooyin kale ta ku wareegeen ayaamaha hayeen maamooyinkii xoogaa waxay dhaheen maamadii lug macnaa qaybta hoosa maamadii xoogaa la faatay xiriirka gashay maamadii marka waxa la yiri ilaa in la jara maahane hadii kale cudurkan waa sii faafa camal ilaa amarkiis kuwii taraagleeda baawurta beel joogto oo Afrika joogto Soomaalida dad aad u naxariis badan waxay isku dardareen maamadii marka waxa la yiri lugta qaybta kala soo hartay inta san gooy laga jaro maamadii marka lugta laga jaray lugta markii laga jaray maamadii way xanuunsatay marka saayid way xanuunsatay ilaa amarkiis Eldoret la Kenya hadana joogta ayaama aydan ay ku xanuunsatay marka waxa la yiri maamada maadaama macnaa qof waayeel tahay dadkii dhalana aan aqoonin haday dhimato mas'uuliyadana looga baahan yahay yaa mas'uuliyadeeda qaadayo ani marka waxa la yiri ani marka meesha si fiican liiga ma yaqaan laakiin nin dhalinyaro meelaha iska jooga waxa ku yiri maamada ana aqaan habarteeda maamada ilaa amarkiis xoogaa markii meesha joogto way xanuunsatay Nairobi la keenay waa lagu daaweeyay Kisumu hadana la keenay mar boqol Soomaaliya ku kala warwareegays ana waxa iri kora ka sii kormeera bas ilaa amarkiis wara marka wuxuu ka soo baxay waraaqada la soo qoray wiilkeeda inuu meesha ku jiro dadka dhintay oo Liibiya ku dhintay inuu meesha ku jiro lacagta akoonka ku jirtayna inuu asiga haayo meesha akoonkiis wixii ku qoran la yahay maamadii waa loo sheegay wiilkaaga waa dhintay Allah naxariistaa la yiri buuggii aragtay wiilka ana dhalay tir waa dhintay la yiri Allah naxariistaa wiilkaana dhintaa ayadoo dheeyso meesha nafta uga baxday marka waxay tiri maamada waxay dhahday Xaliimo Maxamed Ali Ibrahim Ciisa la yiraahdo
marka maamadaas dadka inta badan macnaa adeesan ka wareenin maamadaas Allah u naxariisto janno firdawsi Allah ka waraabiyo qof walba fartiin meesha ugu direysay kuwa Nairobi waa laga faafiyay meelo kale ta Eldoret waa laga baafiyay meelo badan laga sheegay maamadaas inay dhimatay dadkeediina macnaa si toos dad loo yaqaan ma marka waxa leeyahay wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo tahriibayo waxaan leeyahay waalidka maadaama macnaa adinka xasaaradan ay heeso nin asaagay waa tahriiba ana aan tahriibada ka tahay maamadaas ku tusaale qaat walaalkeeyo dhalinyarada Soomaaliya ka tahriibayso maamadaas ku tusaale qaataan waayo hal wiil ka dhashay ayadan waxay tiri hal gabar ay lalto waana dhimatay la naxariista madiya ani ahay wiilkaasna madiyo ahaa waas dugaashaneenay maantana waa aragtaan dhaa meel cidla uga dhaqaaqa lacagtii aan haayay iyo hantidii ku soo tiiri tacabeelay meel ay jirta ma aqaan Soomaaliya ay ilaahay u gurmad marka Soomaalidana maxumo boqolkiiba Soomaalida waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin dadka Afrika joogo dadka Soomaaliya jooga ana xaaladooda ka maraayo inta badan xataa waxa arkaa Soomaaliya dadka joogo qof haduu meeshaas ku dhaawacmo qof meeshaas uu ku dhinto lama qaadayo liirada laakiin Afrika marka joogna anaga waxa samana qaan waxaan fiirnaa bin aadanimada qofka islaamiga Soomaaliya waa u gurmanaa laakiin marar qaar kood badan waxa arkay qof Soomaali oo dhaawiciisa aan la qaadin ilaa naftu ka bax ugu imaadaan CID-da marka waxaan leeyahay buugan xariista la isku furo Soomaalidana waxaan leeyahay ha isku tahriibina dalkiina hadda nabadu noqon raba insha Allah Soomaalina waa saraaci rabtaa ha isku tahriibina maamaas madida wiilkaas madigana ka dhintay xaaladiisa waa ka waraysan waan ii sheegay wax been aan ma sheegay iyo ilaahay loo gaaruntaan igala hadlaa laakiin adinkiis ilaaliya tahriibka waa wada xun maanta xataa ku dhimata xataa dhanka alle dambiga kale waayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri dadaal anoo garab gala laakiin wadan islaameed oo carra adoo caafimaad qabo waa wax macnaa ii sheeg dhanka diinta xataa aan u rooneen